daawadayaal ku soo dhawaada channelkayga Afira Channel waxaan idin soo gudbinaynaa taariikh ku saabsan gabar 8 sano jirta oo u dhalatay dalka Ukraine ayaa u dhimatay duqnimo ama daaweynin. gabar 8 sano jirta ayaa u dhimatay daaweynin kadib markii in muddo ka cabanaysay cudur dhif ah oo la yiraahdo Brucheria disease kaas oo la sheegay in taariikhdaba ku dhacay 160 qof adduunka oo dhan. Anna Sakidon da'deeda biological ahaaneed waxay u dhoweyd 80 sano sida waxa yiri dhaqaatiirta oo sidoo kale sheegay in gabar la yaab leh ay tahay Anna maadaama ay la dagaalaysay jirro culus. Anna dhalashadeeda 8aad ayay u dabaaldegtay bishii hore ee January guul darrooyin isdaba joog ah oo ay sameynayeen isku xirayaasha organadeeda gudaha ayaa la sheegay inay u dhimatay. wax kasta waan u huray si ay u caafimaado ayay tiri hooyadeed Ivana oo aad u jecleed gabadheeda yarta iyadoo murugaysan. Arrinta la yaabka leh ayaa waxay tahay in ilmaha uu ku dhaco cudurkan Brucheria halkii sano uu ula mid yahay 8 sano ama 10 sano. sidaa daraadeed ana da'deeda runta waxaa lagu qiyaasaa 70 sano ama 80 sano inta u dhaxaysa. inanta yar waxaa haleelay oo ay la ildarneed duqow degdeg ah oo xubnaheeda gudaha ka socday iyo qaab dhismeedka jirkeeda. lafaheeda tartiib ayay u korayeen halka xubnaheeda jirka u si xawli ah u duqoobayay. bukaanada noocaana badanaa waxay u dhintaan stroke. Anna waa laftirkeeda waxaa ku dhacay dhowr stroke iyo curyaanimo. tanina waxay saamaysay dhaqdhaqaaqa gacmaheeda iyo lugaheeda. waxaa laga helay Hudson Gilford Brucheria syndrome isla markii ay dhalatay waana jiro dhaxal ah isla markaana loo yaqaan genetic condition. Baris ama research sidoo kale lagu sameeyay Netherlands waxay cadeysay isla markaana tilmaamtay in xaaladan ay saameyso bilyankiiba hal qof. haatana ay tahay Anna qofka kaliya ee u dhintay. subscribe fadlan channelka haddaadan subscribe ku saarnayn.